wasiir adiga iyo wasaaraddaada waxaan rabnaa inaan ogaado ciidanka gorgor ee ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ee la geeyay magaalada Dhuusamareeb shaqada loo geeyay maxay ahayd maxaa dhibaho Dhuusamareeb ka jira oo u baahan in loo daabulo diyaarada lagu daabulo ciidanka gorgor annagoo og in sidoo kale loo daabulo ciidanka Haramcad qaybo kamid ah danab waxaan ognahay magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanadaas galmudug waxay ka mid yihiin deegaanada aan shabaab ku edeb daroonin oo uusan halis ku haynin waxaa jooga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadii laga rabo 22 waxaa jooga nabad sugidda galmudug oo niisa oo galmudug faraceeda waxaa jooga booliis marka waxaan rabnaa baahida keentay inaan ogaano deegaankaas qodobka labaad oo qodobkaas saameynaya wuxuu yahay waxaa socday deegaanadan shabeellada hoose looga horeynayo al-shabaab waana istaageen markii gorgor lagu bilaabay in loo daabulo Dhuusamareeb ma moodaa inay is saameynayso tabarteennoo yar darteedna haddii meel aad meel kale u aado qodobka saddexaad oo yahay deegaanada galmudug qaybo badan oo ka mid ah waxaa jooga shabaab qaybahaas oo shabaab jooga adikoo shaqo ka haya ma aanan arkin maxaa idinkaga qorshaysan dabcan waa aragnaa kuwa aad geedeen Dhuusamareeb oo anagu aan u fahansanahay in loogu talagalay in doorashada lagu soo afduubo oo aniga lagu soo afduubo waxaan rabnaa iska mana dhahayo warkaas ciidanka Haramcad waa ciidanka Abu Mansuur ka soo afduubay Kismaayo baydhabo marka wayna joogaan hadda Dhuusamareeb ay joogaan laakiin waa dadaalaynaa anaguna hadii la yiraahdo si noo soo afduubo waxaan rabaa qodobka ugu dambeeya oo su'aasheeda waxay tahay waxaa jira waayahan waxa soo batay wax la yiraahdo xoogagga wadaniinta oo bastoolada wato magaalada jooga oo dadka teesara hoosta inta kala soo baxay yiraahdo xoogagga wadaniinta horta waxaas ciidanka xoogga dalka ka tirsan yihiin mase waa guul wadayaal oo odagu samaystay afartii su'aalood asigu weydiiyay su'aasha ugu horeysa ciidamada gorgor waxay ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna ku howlgali karaan dhammaan geeyiga Soomaaliyeed runtii waajibaadka ay leeyihiin oo ku cad inay ilaaliyaan xuduudaha iyo meelihii kala loo baahday in loo adeegsan karo waxaa la socotaan annaga waxaan shaqo adag aan gelinay in reform lagu sameeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan si ay sheegadiga aan u xilno ciidan tayaysan tayo leh qalabeysan waajibaadkooda dastuuriga ay gudan karaan sidaas darteeda sida walaalkayga wasiirka uu la socdo galmudug waxaa laga sameeyay qorshaha isku dhafka qorshaha wasaaradda gaashaandhigga u degsan oo ka mid ah qorshe hooleedka ee wasaaradda in ciidamadeena qalabka sida la isku dhafo waa la socotaan ciidankeena nidaamku ku yimid laakiin hadda waxaad moodaa in loo bedelo national ciidan qaran ah oo runtii isku dhafan ahlu sunna wal jamaa ayaa waxaa lagu daray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale ciidamada meesha la geeyay ma aha gorgor hadaa la socotay ciidan kale waxaa jira beledweyne laga qaaday oo sidoo kale oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan waana la geeyay karaa maanta galmudug la geeyay karaa baydhabo la geeyay karaa meel kasta wadday karaan qayb ayaan ku leenahay oo qaybaha ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku leeyahay geeyga sida qaybta 21 waan geeyay karnaa qaybta 27 la geeyay karaa qaybta 43 la geeyay karaa qaybta 60 oo baydhabo la geeyay karaa qaybaha dhan markuu isku furan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka duwan yahay ciidamada kale ee maamul goboleedyada kule sida ciidanka booliiska oo kale booliis waxaa jira local police force ah oo maamul goboleed uu leeyahay waxaa kaloo jira nabad sugidda sidoo kale laakiin ciidanka uu ka madax banaan yahay dhammaan isku mid ah ama Muqdisho joogi karaa ama Laajinkuun joogi karaa ama isha qaybta 60aad joogi karaa 27aad joogi karaa marka waxaan isleeyahay taas hadda wax dhibaato ah inaysan ka jirin waxayna ka mid tahay qaybaheena waanu gudbin karnaa waa sharciyad arinta aad ka dhawaajisay shabeellada hoose shaqo fiican ayaa laga qabtay xaqiiqdii waa waxyaabaha maanta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay ku amaanaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la sameeyay wax la yiraahdo operation readiness assessment waxaa la sameeyay wax la yiraahdo in operation la sameeyo oo ugu magac darnay badbaado 1 oo runtii ay meelihii ummadda Soomaaliyeed lagu dhibaateynayay ay ka mid tahay Saliim ay ka mid tahay Sabiil iyo Caanoole iyo Awgeegle dhammaantooda ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ay sheeg adiga kala wareegeen sidoo kalena waliba ciidamada ammaan badan ay mudan yihiin runtii waxaan dhihi karaa anaga ciidamo geesiyaal aan qabnaa oo dhiigooda bixiya
dalkooda runtii maanta annaga mas-uuliyiin aan nahay laakiin markaa muddad shaqada adag iyo challengeska adag runtii ay wajahayaan waxa waaye guulo fiican ayay ka gaareen sidoo kale qorshaha dagaalka lama joojinin annaga nidaam iyo habraac ayaan leenahay warumaadi ay joogto laakiin waxaan idinkaga taabanayaa qorshihii dagaal inuu soconaayo ilaa al-shabaab laga safeeyo dhammaan dalka Soomaaliya ama ha joogo ishaga adiga eri Puntland ha joogo ama ha joogo galmudug ha joogo ama ha joogo shabeellooyinka hoose ama jubbooyinkaba ha joogo dhammaantooda marka qorshooyin ayaan ka leenahay waxaa la socotaa waqtiyadan inay daadad dhaceen meesha aan ku dagaalana shabeellada hoose ay sheegaysana ay tahay meel dhulbeereed ah oo ishaga adiga xilli roobaadkan aysan suurtageli karin in operation sii socdo laakiin waa sii wadin insha Allah taala